waa qiso jacayl oo dhab ah waxaana loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan mucaashaqiinta da'da yar ee Soomaaliyeed waxaana loogu magac daray saddex nafood. Siraad, weligaa iskuul maadan dhigan oo wax ma qortid waxbana ma akhridid. Weligaa habeen uma aadan hoyan meel aadan ahayn aqalka aabbaha iyo hooyada. Noloshaaduna ma ayan dhaafsiisanayn gurigiina oo aad ka adeegtid iyo suuqa oo aad ka adeegtid. Weligaa waad aradnayd waxba lagama hagranin ee awoodda reerkaada ayaa sidaas ahayd. Qof kasta oo faqiir ahi wuu ku riyoodaa nolol ka wanaagsan tiisa liidata. Adiguna taas dadka kale ayaad kala mid ahayd. Wax badan baad calafkaagu sii malaysay. Wax badan baad doob baabuur qaali ah wata iyo filo doog leh indhaha la sii raacday. Wax badan baad oori nin ladani koolkoolinayo niyadda ka xasaday. Wax badan baad sheeko nolol qurux badan ku saabsan sii dhageysatay. Xaalkiina oo sida ah ayuu Laylatul Qadar idinku soo degay. Nin hodan ah baa lagu dhisay, reerkana lacag ku hafay. Wuu ka da'weynaa oo markaas aad 19 jir ka ahayd, isagu waxa uu ahaa 50 sano jir. Naag ay kala tageen oo 4 caruur ah oo kuray u lahayd, laakiin xag dhaqaale waa nolol aad u dhib badnayd. Waa adigii degay filo beer leh oo gashaday dhar qaali ah ee u ekaaday oori qiimo leh, baabuur, telefishin, video, telefoon iyo qaab la nooc ah oo guryaha waqtigan ku yar ayaa lagu dhigay. Adeegto shaqada u jajaban ayaa lagu qabtay. Habeenkiina guriga waxaa ku ilaaliya waardiyo xoog weyn. Noloshaadii hore waxaa ku dhacay afgambi oo gabi ahaanba waad ka baxday. Waxaad isbarateen dad cusub oo xagga ninkaaga ka soo galay, kuwaas oo idinla nolol ah amaba idinka sii ladan. Waxa ay ka sheekeeyaan iyo sida ay u sheekeeyaan la mid ma aha fuqaradii jaahiliinta ahayd ee aad ku soo dhex kortay, kuwaas oo ahaa dad cabasho iyo calaacal badan oo muran iyo qaylo badan oo dagaal iyo isxagasho badan. Waxay ahaayeen dad sida waraabaha dirqi ku nool, laakiin qolada cusubi waa dad degan oo naftooda iyo noloshooda jecel. Waxay u sheekeysan jireen si qoladii hore aad uga duwan, aadna uga muuqaal wanaagsan. Xeeb nadiif ah baa lagu geeyay oo inta dhar gaaban lagu geliyay lagu dabaalbaray. Caways muusig dheeri ka shidan yahay baa la isla wada ruxay, adiguna lagu ruxay. Martiqaadyo maamuus leh ayaa lagugu casuumay oo dad noocaaga oo kala ah lagu baray. Yurub baa lagu dalxiis geeyay oo aad indho sarcaaday oo aad indho daran dartay oo mooday in lagu sixray. Waxaas iyo wax la mid ah kadib ileen dhagax ma tihide ee waad furfurantay oo milantay. Ninkaaga berigii hore wuu ku koolkoolin jiray, laakiin berihii dambe dan kaama geli jirin. Balwad iyo dad ay isaga isku dooq yihiin ayuu adiga ka jeclaa, waqtigiisa inta badanna siin jiray. Wuxuu bilaabay haweenka uu doono inuu iska soo dhaxo, adigu ileen dumo ma tihide qaati baad noqotay. Gurigii waxaad ku caajisay, sariirtiina ku cidlootay. Waardiyaha iyo adeegtada midna sheeko lamaadan wadaagi jirin. Dhaqankii cusbaa ee lagu baray ayaa ahaa in aan nolosha sare iyo tan hoose la isku darin, haddii kale tan sare ayaa nuxur iyo dhadhan beelaysa. Adeegtadu marka ay fiidka reerka cashaysiiso, caways ma helayso ee sariirta ayay beegsataa. Waardiyuhuna salixun oo uu ganjeelada agteeda u yaal ma soo dhaafo. Sidaa darteed, marka aan ninkaagu joogin waxaad u cidlootaa sidii boqorad laga dhintay. Waardiyaha xooga weyni waa adiga. Waxaad tahay xerow 25 jir ah oo sida jaajuurka u adag una malaasan. Kama duwanid oo reerka dibadda uga dabran. Goor walba waxaad xusuusta ku haysaa mahmaahda ah rag waxa ugu liita nin maqan oo aan la tabin
nin tagaya oo aan la celin iyo nin jooga oo aan la tirin. maalintii oo dhan masjidka ayaa diin barasho u yuruurtaa. marka salaada maqrib fooda laga qaadana halkan ayaad ka soo shaqo gashaa. reerka habeenkii uun tuugta kama ilaalisid ee adiga ayaaba raatubta u akhriya. danta kitaabka Alle ka soo gashana u cadeeya. weli waxaa tahay arday oo diinta aqoon badan uma lihid, laakiin fatwada badana malaha iyo qardajeexa ku dhisan iyaga ayaad kalsooni kaga raadisaa. risaaqaaga ayaa halkaasi ka galay. fiidka marka aad shaqada soo gashid, ganjeelada agteeda ayaad beerta sali dhigataa, halkaas oo aad shaah iyo casho wixii habeenkii Alle ku qoray lagugu keenaa, oo aad ilaa waa beriga daruusta ka akhrisataa, gurigana tuugta ka ilaalisaa. hawsha intaasi ku dheeri waa ninka reerka leh oo aad marka uu baabuurka la baxayo ama la soo galiyo ganjeelada ka furtid. ma jiro qof xumaan ka dhowrsani, waxaadse ku dadaashaa inaad ahaatid nin jidka Alle ku toosan. salaadii kaama tagto, soona hadalkii daa, xan iyo xumaan carabkaagu waxaad ka ilaalisaa iyaga ugu weyn. jidhiinkaagana xaaraan waad uga dhaaran kartaa. awaamirta Alle ee arrimahaas ku saabsan raacistooda intii karaankaaga ah waad ku dadaashaa. haweenka oo ah hubka ugu daran ee shaydaanku hurdo iyo soo jeedba kugula dagaalamo. marka aad la hadlaysid ma eegtid ee indhaha ayaad hoos u rogtaa ama wejiga ayaad dadabtaa, waayo sida aad og tahay eegistu waa sino. haddana tiro ma leh inta jeer ee aad xubnahooda yaabka leh indhaha ku xaday. mid gabar ku fadhida oo bowdaha banaysay, mid guntiinada naaska dacal ka faydmay, mid dirac khafiif ah oo laabta iyo xulusku muuqdaan, iyo mid sii foorarta oo badhida xaggaaga u soo fiiqday. intuba marar badan ayay naftaada miskiinada ah cadaab ku shideen oo aad weyso iyo tukasho isku qaboojisay. habeen adiga oo weyso qaba oo si aadan quraanka u ilaabin dusha ka akhrinaya oo beerta guriga wareegaya ayaad daaqad furan ka aragtay siraad oo qaaban. kadibna hami ayaa ku galay oo waxaad u dhaqaaqday in aad bal uun wax uun qiimayso oo aad daaqadii aad aragtay wax ka qiimayso. xaalku waa iska sidiisa. odaygii guriga lahaa xilliga uu doono waa uu yimaadaa, halka xilliga uu doonana uusan bacagba soo dhigin guriga. taasi waxa ay sababaysaa in adiga iyo weliba siraad aad dib u wada hadashaan, balse shaydaanka uu ka tambadiyay waxaad awood u yeelan kartaa in tallaabooyin badan aad qaado. haddaba intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa daawade qaybta koowaad ee sheekada loogu magac daray 3 nafood. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar Dajiye TV oo la wadaag asxaabtaada barnaamijyada kala duwan ee muhiimka ah ee aan kuu soo gudbino. naga filo qaybta xigta ee qisadani jacaylka aadka u xanuunka badan.